kulankan oo ku saabsanaa sidii loo horumarin lahaa aqoonta sayniska iyo tiknoolajiyada ardayda Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso waxaana barnaamijkan oo fulinayay ururka Somali STEM Society ka qayb galay arday ka kala socday jaamacadaha ku yaala magaalada Boosaaso iyo dugsiyada sare ee magaalada Boosaaso ugu horeyn injineer Cabdicasiis Faarax Siciid oo ah wakiilka ururka Somali STEM Society ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay Somali STEM waa urur ay wax asaaseen aqoonyahan Soomaaliyeed oo isu tagay gaar ahaan waxa fikradda lahayd oo asaastay gabar la yiraahdo Ditoreso Saadiya Siyaad runtii aad aan ugu bogaadinayno uguna mahadsan tahay gabar kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed inay isu taagtay in ururkan Soomaaliya laga asaaso barnaamijka STEM waxa la yiraahdo dunida oo dhan buu ka jiraa dal walbana wuu ka jiraa waxa uu ka shaqeeyana waxa weeye sidii technology-da iyo science-ka kor loogu qaadi lahaa barashadooda iyo intifaacsigooda Professor Salwa ka sheekeeyay wax kasta oo maanta aynu ku shaqeysano ama intifaacsano inuu ka yimi science marka si loo intifaacsado oo looga faa'iideysto science-ka iyo technology-da waxa loo baahan yahay barashadooda in kor loo qaado Professor Cabdisalaam Ciise Salwa gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Bariga Afrika ee dhinaca waxbarashada ayaa dhankiisa goobta ka hadlay runtii waxa darajo ishraaf ku noo ah inaan ka qayb qaadano anagu East Africa ahaan hawsha iyada muddo waa soo wadnay oo dhowr sano soo wadnay gaar ahaan macallimiinta hadda way fadhiyaan science iyo technology-da ahayd runtii waa dhacdo muhiim ah oo waliba gaar ahaan qaybtan Afrika iyo gaar ahaan muxuu ahaa Somali muxuu ahaa STEM Society inay ka soo qaybgalaan aad baan soo dhaweynaynaa wada shaqeyn ahaan iyo hadda ahaanba hadafka maanta kulankan loogu talagalay waxa weeye xusuusin iyo dhiirigelin aqoonta gaar ahaan waliba waxaa maadooyinka science-ka technology-da iyo engineering-ka iyo mathematics intuu barnaamijkan socday waxaa goobta laga soo jeediyay mowduucyo la xiriira sidii loo kordhin lahaa aqoonta sayniska iyo tiknoolajiyada ardayda Soomaaliyeed waxaana soo jeediyay qaar kamid ah macallimiinta jaamacadaha iyo dugsiyada sare inta ay lamida ama web application haday noqoto ama systemyo badan ha noqoto ardaydu way sameeyeen laakiin hal aan laga boodi karin baa jirto hadda meesha ugu qoran African Science Africa horta waxa weeye misaamisantahay yani qofka duu application sameeyo application-ka oo tayo leh service leh markuu soo bandhigo waxa laga yaabaa in laga gadan laakiin hadii waxa laga soo sameeyay Hindiya ama waxa laga soo sameeyay Malaysia automatic loo gato marka insha Allah taala qaabkaas anagu ardaydeeda ugu sameeyna waan rajaynaa insha Allah urka Somali STEM inay wax badan naga saacidaan annaguna waxaan talooyinayna ku darsano iyaguna waxay talooyinayaan ugu soo darsadaan si ardaydeena loogu sameyn lahaa barnaamijkaas oo sare loogu soo qaadi lahaa maadooyinka sayniska waxa kaliya adduunka ku kala horumareenna ay tahay maadooyinka sayniska inaguna ardaydeena in dhiirigelino ugu dambeyntiina ardayda kulliyadda engineering-ka qaybta telecommunication-ka ee jaamacadda Bariga Afrika ayaa soo madhigay hal abuuro la xiriira tiknoolajiyada iyadoona sidoo kale ardayda IT-ga bartay ee jaamacadda Boosaaso dhankooda ay la yimaadeen hal abuuro la xiriira cilmiga tiknoolajiyada Maxamed Madan Universal TV Boosaaso